labadii bilood ee hore ka saar 5 bilood baan wada soconaa 7 bilood baan gurigeeda jooga markaas sidoo baxda habeenkii marka dheedka tagaysaa nooga yar sheekay jimcaha fasax weeye holiday weeyaan salaada jimcaha markuu ka yimaado gurigu jooga casarkii markuu baxayo ama anaa ka hor baxa si aan inooga shakiin ama isaga iga hor baxa meel baan ku balanaa istreetka guriga dibadiisaan ku balanaa halkaas uu gaariga igaga qaada galabtii oo dhan baan meelaha tagnaa xadiiqadaha tagnaa madaacimkan cuntooyinka soo cunaa caweys fiican baan soo qaadanaa guriga markaa anaa kaga soo horeeya nama dareento igama shakido waxba ima tiraahdo habeenkii dambe 5 bilood markaan wada socono oo odayga yare xaaji lacaaga aan ku dakhranahay oo uu igu dakhran yahay oo lacagta igama kala bahalkay kii hore waxa ima siin jirin xaafadayadii aan dhergiyay oo maalinba dahabka yar farkalka yar uu ii wada hadiyada ah dhiga yar rasiil sira khafac yar ku jiro uu ii wada hadiyad ah meeshaasna dahabka ma sha Allah ku ah waan maalin kasta leeyahay dahabkan yar baan maanta lacag yar aan waagi kii ka qaatay soo iibsaday Allah ma sha Allah dahab qurux markaas waxa ku leedahay xaaji maanta saaxiibaday waxay soo iibsatay dhiga yar baal yar qurux badan markaas uu ku leeyay waan ku iibin doonaa adigana nooceedo kale oo iyadoo soo iibinayba may a'uudu billah oo adigu ilaahay baan ku dheeray marka xarabtaa nin xaaskiisi carruurta haysa khiyaama ay dahab aanu iibinay adiga ku iibinay hadda ku dhaqdo harabtaa aniga ilaa uu shukaansan iska ka dhaanacin iyadoo markuu shukaansan jiray inta in ka badan buu iibin jiray okay brim waqtigeygii weeyaan aniga bay la tan ninkaygu iga qaaday saas uu shukaansanay isagoo waxba aniga isiineen okay waa timekaagii waa timekii tamaandho haye tamaandho this is my time haye ku soco waxaa dhacday maalintii dambe baa waxaan ku heshiinay guur inaan isguursano jimcay ahayd sidii caadada ahayd baan israacnay madcan baan tagnay aabahay baan la hadlnay uu la hadlay waan baray waxaan ku oraa aaba inaan kana xadoonayaa inaan isguursano waxaan rabaa inaad walaayada soo saarto aaba uu la hadlay uu waraystay waan u sheegay waxaan ku reer qasax weeyaan waka waa ninka magaalada igu haya waa ninkaan gurigiisa tegay waa ninkaan gurigiisa joogo waa ninkay soo dhaweeyay waa ninka sidan waan sharaxaad dheer baan ka bixiyay maxaan u sheegtay aabahana gurigiisa joogtidba ha laakiin isagu caawinaya ka dhigayna saaxiibaday uu qabo kamaan dhigin aaba markay waraystay isagu uu yiri waa yahay gabadha waan ku siinayaa laakiin ii soo dirday odayaal haday wadankan halkan gobolkan ku joogaan ka odayaashii buu diray waa la soo mihiriyay waa gartay markii la soo mihiriyay ninkii hadda waan isku mehersanahay intii hore iskaga soo dhawaanay gacantii iyo shukaansigii iyo markay hiblaayo maqan tahay iskaga soo dhawaanay waa gartay gabadhii uur bay leedahay xaaladihii dumar bay ku jirtaa fadhigii badnaa ma karayso oo fiid bay iska seexataa waa gartay fiid bay naga kacdaa ay iska seexataa ama waxay samaysaa saa intay qaaciga u soo seexato ay isagoo badeecada cabiya dhabtiisa soo barkataa halkaas ku gamaadaa waayo marxalad bay ku jirtaa way xanuunsanaysaa ma fadhii karayso masoo adigu fiid bay iska seexataa ama halkan ha ku gamaado dhabtiisa ama guriga ha tagto hablow fiid ha seexanina inanay iyadoo gabadhi gurigaaga joogto fiid ma seexan layd inuu hablahan fiidka seex ma kiniin baad siin jirteen markaa talo may xaalad dumar bay ku jirtaayo beebigii 6aad ay soo wada aniga waxaa jeeda oo ku sheegay dad u seexato iyadoo gabadhi guriga joogta waraabana wax kasta dhici kara iga seexan please waa maqlaysaa imika waa sheekooyinkan dhageyso de xaaladdu mar haddii ku jirto gabadhu ma bahalkiin karayse marka horeba gabadha soo xaraysan gacantay sii qabsatay seexiso hakayga tegaysaani qolka hurdada may fiidooga daaray dhahdo axsan wallaahi haa waxaa dhacday halkaasay dhabteedisay ku jiiftaa way gamaasan tahay aniguna garabkiisanaan ku jiifaa agtiisaan fadhiya garabkiisaan ku jiifaa keliya hata waxaan iska ilaalinaya inay madaxa qaado garhkiisaan ku ciyaaraya ma iyadoo ku jiifta lugiisa dhabtiisay ku jiiftaa way gamaaday haa
qaaciga isaga soo jiifsatay dhaftiisa ku jiifta halkan badeecadii u taala dhinacan aan ka fadhiyay markaan arkayna gamaado oo soo dhawaanay garabkiisaan ku jiifa garkiisaan ku ciyaaray ninkaas waa ahlu janno adduunkii uu janno ku helay midna dhabka tag fadhidaa midna garhka anoo xumahay ilaahay ku siiyo deetana waxa dhacday halkii baan muddo sidii ku wada joognay habeenka ay tagto sariirta hore u tagtana xuduudahan soo xidhna waa gartay salaamu calaykum baa dhacda waasan bacadkan qar ma maqasho waxba kama shakido ma soo kacdo xaaladaha jeexjeexay dhinaca markay dhulka dhigto ilaa uu tago war ma hayso waa gartay laakiin rasaas dee dhulkaad dhigtaan waa gartaa markaan dhowr bilood joogo ayaan ur yeeshay first baby Allahu akbar hadday it's your time bay markii hore maxaa la dhaca waa waqtigii sheegay ingiriiska kuma fiicnay that's unsara time yet af Jarmalka naqaan af ingiriiska ma naqaan fogaatay waa waqtigeeni soo qora caawa dhan bayna laagay waqtigii ku soo waxaan dareemay inaanan caadi ahayn waxaan dareemay in waxyaabo badan iga khaldan yihiin dhakhtarkii baan tagay waan u sheegay wuxuu yiri dhakhtarkaan tagay wow waxa la yiri urban my time ida doontay wax kala sheega it is my time ida dhahday it is our time inantaas sheegtay waxaan jaamacad kama soo bixin masaasad ku joogtay Mareykan it is my time bisoo qodan it is our time ku soco waxa dhacday dhakhtarkii baan markaan tagay shaybaarkii baan sameeyay markaan sameeyay xalay guri wow first baby gaaga caloosh ku wada hambalyo waa gartaa waan farxay waa baby-gii 7 sano 5 sano aan sugayay ee laygu lahaa waa madhasho ee naagta layga raacay ee gurigayga ku dumay ee maalintan sanad kaliya guriga lahaa laygu bilaabay waa gartaa kama fikirayo gabadhan gurigeeda joogta armay ka ogaataa kama fikirayo armad baxar gashaa kama fikirayo xagaa tagi kama fikirayo ninku meel ma ku geynay waxaas oo dhan kama fikirayo kaliya waxaan ku faraxsanahay ilmaha caloosheeda ku jira ما شاء الله ما بحسوسني سيد بقول محو جين واي محو حكو قبل واي ما بحسوسني سيد بقى ماي أنا فرح سنة وحقيقة تمي اللي فرحات المها 5 سنة سوقي إلى هيسي سنة تلحات واحد عضي حافظ يدي مع الله أنا دكتور كي جوجا سوقي مع الله الله وأنا فرح سنة هاي دكتور كي ساسو يجيري حافظ يدي مع الله الله waxaan first baby-gii baa caloosha ku sidaa waa bil kaliyaata gurigii baan imi farxadda wejigayga ka baxaysa way aragtaa xeelad maanta maxaad heblaaya la faraxsan tahay waa qofka wejigiisa laga gataa markuu faraxsan yahay markuu murugaysan yahay markuu xanuunsan yahay wejigiisaad ka garanaysa aad iyo aad markaasaan ku idhi waxaan la faraxsanahay inan baanu heshiinay guur baan ku heshiinay maalin dhow dee waa layga kaasoo doonaya saasaan ku faraxsanahay markaas waxay leedahay wiil baanu heshiinay guur ku heshiinay maalin dhow waa layga kaasoo doonaya saasaan ku faraxsanahay la hawla walaa quwwata illa billahi al-ali marka in shay ma dareemisina saaxiibada khiyaantay wax ma dareemisaa marka may ma dareemayo imsa jabka faadma tamaadho sugi gacanta soo taaga markaasaa waxay igu tiri allah waan faraxsanahay anaa ku dhisaya halkan anaa kuu jooga hooyo kuwaasoo ma ogid anigaa ku dhisaya aniga arooskaaga gurigaygaad halkanaa lagaa soo doonayaa halkanaa kaa gelbinayaa ninku suu yahay xaguu ka shaqeeyaa muxuu haystaa ma wixii waddanka hadda yimi baa sharci ma leeyahay iqaamad ma leeyahay mawjado kale ku jirtaa waa gartaa markaasaan waxaan ku dhahdaa haa sharcigu leeyahay shaqo yar buu ka shaqeeyaa shaqadiisa waxba ma gelin aniga haddii uu guursado oo uu soo doono oo waxyaabo kale markaa niyada waxaan ka leeyahay ayaa u sheegay inuu yahay muuseheedan guriga u jooga waxa dhacday jimcihii baa la gaadhay jimcahan bixi jirnay markaa sidii caadada ahayd ilaa markaan sheekaysanayna jimcahan bixi jirnay
جمعيه بالقاري جمعيه بان بحناي أول مطعم كمل هنا كسر نقول شنو حديقته حتى جمعها أنت مدام وحاج كي هاي هوتيل بان سوق رسنا حلي دنبارني مادنا هيا جمعيه ما كان تقني waxaan ku wada waxa sameystaa hadaba xaaj ila reer dulsaar ku awaanahay xaaska goday ogaatay ilmaha yar baa iga soo ridiyay guri ii kiree anigu aan leeyahay ila wareeg يا guri ii kiree anigu aan leeyahay hada ila wareeg oo xaaskaagan dulsaarka ku ay iga wareej waan gartay ma la wareegay abada la taag mise lama wareegayo أنا waxay dhahdo xaaladaha ku jeexjeexa ilaahay xaaladaha ku jeexjeexa aamiin reer muslim oo gashay ilaahay buuqi qeyl la doonta haya waayahay buu igu yiri guri baan soo raadso adiguna ana waan soo raadinayaa gurigii baan soo raadinay gurigii baan soo helnay alaab qurux badan buu ii dhigay gurigii baan soo degay gurigii aan soo degay guriga ayaa kuugu imanaya saaxiibada isagii ma ii imanaya waa inuu habeen aniga ii imaado habeen iyada u imaado isaga ay guursaday isagii maba imanayaba galabtii markuu shaqada ka soo baxo in yar la waqtiga guriga tagi jiray way taqaanaa waliba intaan joogay anigu hore u iman jiray waqtiga guriga iman jiray way taqaanaa waa inaanu dib uga soo dhicin in yar 30 daqiiqo 20 daqiiqo guriga soo istaaga assalaamu calaykum calaykum assalaam waruusi cararaya intu salaam ku dhaafaa ha ma sha Allah jimcaha sug markaa waxa ii dhacday waxa sameeyay xaaladii baa jeexjeexay ilmihii yaraa kadib aan noqday iyadii waxay ku taahday waa ay ninka ku guursaday saaxiib maxaad ii bari laadahay ninkan guriga kuu kireeyay guriga kuu gogleeyay aanan arkayn shaydaanba ma jooga waan ku dhahdaa wuu baxay halkaasuu tegay markuu yimaado safar buu ku maqan yahay ku bartay hadduu safar ku maqan guriga cidlada maxaad ka qabanaysaa maad ila sii joogtay maalintii dambe waxaan go'aansaday inaan adduunka isku qarxiyo gurigan cidlada aan keligii jooga aanay soconayn saaxiibaday aan u sheego inaan xaajigeeda la wadaago adduunku qarxo dabeedna habeenkeyga uu yimaado in habeenkeeda la joogo allahu akbar hadda adkaatay marka waa haddii faadma xaaladu jeexjeexaya waad go'aansataa waan go'aansaday maxaa soo socda ku soco isagii waxaan ku wiri isagaan kaga bilaabay waxaan ku wiri dhageyso xaaji ilaahay baa afar kuu baneeyay gabadhaada u sheeg waxaad ku tiraa intaan naag shisheeye kaa guursan lahaa saaxiibada baan guursaday habeenkeeda u tagana habeenkeyga u tag haya ciyaalka qayladooda kasoo dhex baxa shan caruura kaa dhex qaylinaya kasoo dhex baxa oo gurigan cidlada in cidina kugu buuqina cidina kugu qaylinayna aniguna aan garhkaagaas kaga ciyaarayo imow waa waree yaa markaasuu yiri maya hadda maaha munaasib maaha waayo hadda waa xaamilo qof xaamilo ana looma sheegi karayo marka ay dhasho waa ballan waan u sheegay waa garta waxba kama harsanayn intay dhalaysay waaye baan ku iri waanu dulqaatay waanu sabray way dhashay 40 markay ka baxday baan ku iri xaaji way dhashay gabadhii haya way dhashay ballantii aad qaaday ha ka bixina u sheeg wuxuu igu yiri uma sheegi karayo gabadhan intaasoo dhan baan qabay kuma odhan karayo gabadh baan guursaday haddana saaxiibada baan guursaday kuma odhan karayo waqtiisii maca sonkor laa xawla walaa quwata in lagu qariyo oo saa lagu bahdilo adoo ina yaro qurux badan adaas u geystay oo ilaahay uu kuu qoreen si sharaf leh lagu guursado maca sonkor imsa ku farxday go'aankaas ku soco leena uma sheegayo waayahay baan ku iri saaxiibaday baan la hadlay waxaan ku iri saaxiib waxbaan rabaa inaan kuu sheego acuudu billaahi min ashaytaan rajiim dhaadaka qoftu haya waayahay maxaad ii sheegaysaa waxaan rabaa soma jeclaan jirin inaan ninkaygii ku baro ninkaygii baan ku barayaa diyaar ma tahay alla dumaashigay imisaad qarinaysay imisaan kaa sugayay inaad i barto waa iska daacad way qayrinaysaa waa daacad maaha waa walaashaa qof way ku aamintay doqon maaha way ku aamintay qofka hadduu ku aamino dadka qaar baa marka qofku aamino doqon u haysto qofku doqon maaha
وكو آمنت آمنات بلدها ضمنمو كسر هذا تقنع واحد عادي waxaan ku ori ninkan kuu sheegaya hadaba dhageyso ninkay guursaday waa nin reer hebel oo reer qansaxa oo reer qurac ka sii ah oo reer laanka hoose ka sii ah waa reerkii ninkeedu ahaa oo waa reerkaygii annagaadna soo gashay ha wadanka intaasuu joogay ninka intaasoo bilood baan isnaqaanay intaasoo bilood baan isqabnay oo ma gurigayga intaad joogtaad isqabteen weli waxba ma fahmin ha intaad gurigaaga joogtay baan isqabnay ninkaan rabaa daba inaan kuu sheego waa hebelkee dee muuse لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من هذاك لو غرفي muuse hee way ku celisay muuse hebelkan guriga kuu jooga caruurtaada aabahood baarigana ilmahayga aabihiisa markaa saaxiib waxay nahay iminka dad faamila saaxiibtinimadii waxaa kasoo soka martay in caruurtaada iyo ilmahayga soo socda walaala yihiin gabadhaas hadday saaxiibadaa tisaa ku khiyaantay hablow maxaad ku samayn leedahay ciil baa ahaayaba aniga hadda yaa haya waa saaxiibaday waa gabadhii gurigeeda igu soo dhaweysay waa gabadhii baaskooladii markuu ninku ciilay ii dhiibtay waa gabadhii gurigeeda i keentay sidii walaasheed oo ka yar ayaan gurigeeda ugu noolaa xilligaan doonaan bixi jiray xilligaan doonaan soo geli jiray xilligaan doonaan seexan jiray xilligaan doonaan cuntada iyadoo ay soo karisaan cuni jiray guriga xitaa wax kamaan qabanin ma adiga bay ku tiri ma adiga oo walaashay ahaa oo saaxiibaday ahaa ayaa ninkaygii guursaday markaasaan ku odhi ilaahay baa afar baneeyey way dhacdaa oo aniga baad ogtahay inuu ninkaygii naag raacay marka raggan lama celin karayo intuu sariirtaa saarayii buu ninkaaga yahay lama celin karayo ilaahay baana afar u baneeyey inagaa u baneey diintaa u banaysay markaa waxaad samaysaa saaxiibada intaan kolley naagkalu kaa raaci lahaa sidii tii aniga iga raacay kale anigoo walaashaa saaxiibada ayaba kuu haynaya anoo walaashaa saaxiibadaa ku haynaya ma kuu haynaayo caawa faadma madiga soo horbaxayd balsan kuu gelila ku soco taleefankii ayay igu dhigtay taleefankii markay sam igu siisay oo aan joogan isleeya baga ha qaraxdo anigu ileeya uma sheegi karo haddaama anigaa tuwaleedoo guriga ka dhex baxay oo geed ah aan leeyahay markaan waxaan ahay 7 bilood ayaa isagii orday soo garaacay war farxadaan sugaynaa markaasuu igu yiri maxaa ku geeyay reerkayga markaasaan kor anigu soo reerkaagii ma ihi markaasuu yiri waay gurigan kuugu imanaya markuu imaado muxuu samaynayaa bay idinla tahay ilaahayuu ku dilaa weliba warqadaadii ku siiya waxaanu sugaynaa warqadii baan sugaynaa maxaad sugaysaan warqadii unbayna martaba ninkaas adduunna ragayay warqadaa sugaynaa waa qosolka inuu kusii haystaa sugaynaa waa oohinta warqadaa sugaynaa waa taabta qosolka taabta ku soco 1800 qofaa ku joogtaan 1800 maxaa taaban weydeen faadma tamaandho laga soo horjeesto ilaa kuna shaqada ku jira taabta soo kaca ku soco faadma 2009 boqol baad igu soo fasaxday walaa uu fasaxay caawa hadan ku hor joogno ku qaraacilin ku soco waxaa dhacday halkaa markay marayso waan sugay waxaan isleeyahay dee kibirkiina uu igu jiraayo nin baa dee ku taaban karayo waxaas ismalihi waan sugay albaabkii soo garaacay waan ka furay marka waa nin dee xoogaa buuran oo miisaan leh calooshan halkaa ka xoqanayo tii casiirka ku baxday albaabka markuu saa uga soo galay ee aan albaabkii xidhayba hal dhirbaaxa ah buu yiri iska qabo maasha allah muuse soo wada qorcaawa muuse waa la jirnaa ninkan fifa muuse ku soco dhirbaaxo kow 500 qof ay taabtay hala furxaasisana ku soco waa hayna dhirbaaxo oo ilaahayda taqaana ayuu yiri iska qabo maasha allah xamlo oo dhirbaaxay waan dawaqay
timaha ayuu saa intuu ii soo qabtay ii soo jiid ما شاء الله تبارك الله موسى فيفا موسى موسى بس مردك صغرى موسى يا موسى كسع fadhigii buu iila yimi oo say tahay buu igu garaacay say tahay waa xaamilo xitaa isma odhan وكدلي ما كان كراعيا feedhka laadka dharbaaxada halgaada wuxuu ii dilayaa feedh tantoomo maaha feedhkiisa ahaa tantoomusaa ila dhacaya ولا يا بالله يتلاوى فريد موسى يا موسى كسع هي markii hore waxaan islahaa dee iska celiyo awood iska beelo si uu ninku kuu garaaca si ninku kuu taabtaa iska celi awood iska baadh ma awood baa jirta naag xaamilaba nin intaa la eego feedhu intaa la eegin lugtuba baaldi la eegta iska celin karas يا موسى مع السكر كسع موسى هي saa markuu igu tuntuntay buu iska baxay واقرته albaabkii wuu isii xidhay oo iska baxay meel kasta way koosan tahay kood kasta way kuusan yahay halkan ishu hoosteeda way bararsan tahay bishinta halkan way dilaacday feedhuhu ima noola ma kici karayo ما شاء الله afkayga waxaa soo dhan ii geystay haddaan iska aamusi lahaa waa lay roonaa واقرته waxaan sameeyey waan la hadlay waxaan ku uri haddaabaad maanta ii dishay anigoo xaamila oo heblaayadii shalay aad lahayd habeen iyo maalin baad isku tihiin haddii saa qurux badantaad qurux badanta kamaan tageen aad aawadeed ii dishay naagta isku dhex daadatay ee ballaadhatay ee buuratay ee intaasoo caruura dhashay qasaalada noqotay aawadeed haddaad ii dishay waxaad samaysaa قسالة نغطيها haa aawadeed haddaad ii dishay waxaad samaysaa meherkaygii ii soo dir waxaan kaa sugayaa warqadeydii meherka كسع موسى كلا والله سي كسع هي wuxuu igu yiri waxaan kuu sheegaa waxaan kuu soo dirayaa ninkii walaal waxaan kuu soo dirayaa انتي سبسكرايب كنو صارتي الله هيدا شرفه او سوف لو غري ولا هي wuxuu igu yiri waxaan kuu sheegaa waxaan kuu soo dirayaa lacagtaad ku noolaan lahayd aad biilka ka dhigan lahayd bishan taleefankayga dambe hadaa soo garaacdana iska jir هي wuxuu ii soo diray lacag buu ii soo dhiibay 2,000 buu iigu soo dhiibay darawalkiisii lacagtii baa laga keenay lacagtii markii laga keenay waan fikiray waxaan siday ninkii kulama soo hadlayo taleefankii kaama qabanayo uu ku dilay maxaad samaysaa halkan hadaad joogto haddana uu biil yar kuu keeno halkan kugu gumaysan lahaa maad baxdid oo halkaa turkiga martid oo tagtid هي waxaan sameeyey inaan aan aqaanayo meesha joogay baan u tegay waxaan ku waxaan rabaa walaa inaan tago oon halkaa turkiga maro oon halkaa yurub ka galo ee ka war ما شاء الله إلهي حالته كجاجحان صع فاضل jeexjeex baa ii hadhay ولا كسوقنا ولي سعته كسع ولا حبك ما يعرفون ولي deetana wuxuu igu yiri waxaad samaysaa maxaad iminka ka tahriibaysaa layn maad iibsatid layn baad halkan ka helaysaa dawaayo layn ii soo raadiyo layn wuxuu ii soo helay maraykanka ah oo nin xaas ku qaadaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاطمة مريكان بقشة waxaan ilmihii inan bay ahayd reer maraykan baa loo yaabaa marka reer maraykan godkiina biid kusoo galeen ku saac 2 bilood baan joogay gabadhii sidii bay u kacsan tahay waxay xidhatay weer cas inaad ifurto mooyaane ma ninka saaxiibaday oo guriga igula noolay iga hoos guursaday bay taagan tahay gabadhi gartoodii baa lagu jira intan uu iga maqan yahay xaggaasu ku dabaqsan yahay inantii baan umulay bishii kalena lacag buu ii soo dhiibay umushii lacag fiican buu ii soo dhiibaan ku umulay lacagta wax yar inaan ka cuno mooy lacagteedii waan urursanaya intii aanu isqabnay ee uu shaxshaxda ii ahaayaan shukaansanayay dahab badan baan ka qabsaday dahabkii baan iibiyey lacagtii baan isku dardarsaday laynkii baan iibsaday lacagtii baan shubay laynkii baan iibsaday inantii yareed baan soo qaaday hooyada iyo wadankii baan keenay maraykankan ka soo xidhay maraykanka markaan ka soo xidhay ayaa waxa dhacday gobolkeed ka degtay walaan iska kaalaalinaya gobolkii
alla gobolka maan weydiin maraykanka bay igu tiri Ohio ka degtay ku socday beetinimada waxa way maraykanka markaan ka soo xidhay ayaa waxa dhacday waan halkaasan joogay warqadii soo siimaan oran lamaan hadlin maan raadsan gabadhii waa iska furtay saaxiibaday way iska furtay gurigii sidii buu ku burburay a'uudu billahi ma ogeyn miyaad baxsatay way ogeyd iyadu waxayba ka muraara dilacday ninka saaxiibadeed oo guriga joogta ka hoos saartay wallahi billahi gabar Fariida iyadu waxay taagan tahay haddii uu naag kale meelaha ka guursan lahaa lamaan hadle shan caruuran hay intaas soo qabi karinayso soo qabi laakiin walaashay gabadhan walaashay ka dhigtay gurigeyga joogtay isagoo agteeda fadhida aan ku seexanay kalsoonida ku qabay iyaga la hoos baxay ree Ohio afkun baad soo qabtay Ohio waa jeclay Ohio ree Ohio idinka maaha haya Ohio macayn waxay wadna macayn Ohio ree Ohio hablo qurqur inta WhatsApp ka weydiinaya oo kaali weydii soo weydii wala soo weydiinaya Faadma weydiinaysa meeshay noqoto hadhow ka cabaarina ree Ohio xaal qaata ya ree Ohio xaal qaata hadda la soo weydiinaa laakiin hadii Ohio noqoto ka warama Faadma yaa waay Alaska ka dibne leed gurubay Alaska ya jooga Alaska yaa jooga gacanta soo taaga ku soo Alaska muuna joogta marana ku soo waxa dhacday halka markay marayso gabadhii warqadii ka qaadatay waxa kacday shirkadiisii way kacday lacag badan baa laga dhacay uu isku dhaxdaatay kaligiisu soo istaagay waa gartay anigu waan shaqaystay hooyaday iyo aabahay iyo inantaydii reed baan process u xaraystay waan keensaday processkii markaan u xareeyay oo aan keensaday waan shaqeeyay reerkaygii inantii reed hooyaday aabahay baa yahay lama soo hadlo warqad ma soo raadsado laakiin still waan la soo hadlaa magaaladii waa la sheegay gabadhii saaxiibada inay kala tageen waa la sheegay in isagii ay gabadhii uu shirkadii ka kacday aan uu waxba hayn shaxaad hadda ku nool yahay xaaladahooda dhan waan hayaa ninkii shaxaad ku nool yahay bal ka war reerku baabisa business baan furtay businesskii markaan furtay sorry muna businesskii markaan furtay business balaaran baan furtay businesskii markaan furtay oo aan joogo inantaydii yareed ee markaa aan isugu kaaya dambeysay ay jirta 20 sano ayaan wada hadalnay after 20 years waa gartay markaan wada hadalnay ayaan isa salaanay calaykum assalaam iska waran reerkii caruurtii ka waran waan iska fiicanahay maasha Allah alxamdulillah anigu halkan iska joogaa reerkii wadankii bay joogaan dadkii waa weynaado oo qaar baa guursaday waa kan markaasaan ku yiri ka waran hadii aad halkan iska timaadan ku soo qaato soo qaad xaaladaha ku jeexjeexinay ku soo wuxuu igu yiri walaay waan ku ducayn lahaa gabadheedii ka warano markaasaan ku yiri gabadhaadi wadigii nacay halkii baan odaygii sheeka ka bilownay weli anigu waan jeclahay حاجة لعك وانشعله وقت حالته يجحجحين في عاوي دلكي يوحي وحبا ومركو حتى يجت تجيس في عم بإيبي لنا يلعتن كسو تجيس قالها وان سوقعتي هل كان كياني وجي بان كياني odaygiyo sii weynaaday xoogaana uu iga weynaa anigoo sii yara weynaaday halkaa markuu joogo oo in muddo joogno oo bidaartii aan u soo beeray oo nimca ku jirno oo xoolihii kala wado oo meeshii xoogaa la qabsaday bidaartii ma soo beertay ma sha Allah bidaartii baan u soo beeray oo ina yaro joobana ah ayaan ka dhigay waa gartay ayaa waxa dhacday inantii reed ay noo weynaatay oo jaamacad dhigato anigu ana wax kale nin dambe ma guursan meherkiisuna way ku xidhnaa ninta inaan iska furo oo nin kale guursan niyadeeda kuma soo dhicin xoolo taacabo shaqayso niyadeeda ku jirta business weyn baan furtay ayaan shil gaari galay waa gartay
gaarigayga baakan ku jira gaari kale ku dhacay labada lugood ayaan ka jabay لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا labada lugood markaan ka jabay aan dhakhtar galay ayaa bira laygu kabay intii aan biraha ku kabnaa ayuu kambani aan lahaa oo baabuurta soo dejin jirtay baabuurta ku iibin jiray ayuu saxeexday أنت أجبني ها ما شاء الله. isaga دعاء موسى مرد كدقة ننكي يقول سنة يا موسى يا موسى ولا يبلين باكو هاي موسى سمرد كدقة هبليو موسى تاجرسن كسا kambanigiibu isagu isku qoray waraaqaha uu ii keeni jiray warqadan saxeex waan u saxeexi jiray anigoo kaaraya mana warqad waqti aan ku akhriyo mid kale waxaan isleeyahay wixii hore dhacay wixii hore laga soo gudub iminka kaansatay inta 20 jirka baa idinka dhaxaysa wixii hore iloo baan isleeyahay ismalihi Muuse wali lug yeelaba ku goynaya raggu ma ilaabaan waxaas raggu maba ilaabaanba yaa gabiga samurda Muuse ka dhiga yaa Muuse ku soco shirkadii buu wareejistay shirkadii markuu wareejistay oo uu saxeexday ayaa waxa dhacday halkaas uu xoolihii bangi ku urursaday xoolihii uu urursaday biraan ku jira bira igu kaban marka 4 sano jooga marka wadanka sharcigii waan u qaaday sanadkii shanaad markuu sharcigiisa u qaatay anigoo bartii aala oo birihii igu jiraan ay wadankii ka degay oo halkii aala oo birihii kugu jiraan wadankii ka degay ha ma sha Allah ha ka degay iman oo imo oran si sharaf leh wadankii baan tagayaa aan soo booqanayaa oo ama halkan aan soo ama reerkii ama caruurtaydii wuxuun haduu marmarsiiyay oran lahaa waxaan soo oran lahaa oo ka fasax qaat wadankii buu ka degay wadankii markuu ka degay ayuu wuxuu guursaday gabar yaro gabadhiisa yaraan u haya anigu la eg gurjoob ya Muuse wala Muuse warjaa gabadh yar oo le gabadha isaga u dhashay ha waa ware intii aan jabnaa ayuu wuxuu iibsaday xoolo miyi buu iibsaday gabadh yar buu guursaday miyi buu ku aqal galay caano fresh uu doonto iyo hawo fresh kambanigiina isaga shaqaalihii intuu qaar ka eriyo shaqaale kale u dhiibtay buu isaga u shaqeynaya mana ogayo waxaan moodayaa kambanigiina aniga aan leeyahay weli inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun marka maxad weli lama ogid inuu guursaday weli ma ogi laakiin wadankii tago ogaatay teleefankii waan ogaaday inuu wadankii tagay waan ogaaday oo markaan la hadloon ku xagaad joogtaa oo dhowr cashan waayay intuu sii socdo intuu degayay maalintii dambe markuu iga qabtaan ku xagaad joogtaa teleefankiisii wadanku uu dansan yahay WhatsApp-kii baa u shaqeynaya wuxuu igu yiri waxaan joogaa wadankii baan tagay oo maxaad wadankii iimayl isku sheegay arin degdeg aan u baxay oo arinka degdeg aad u baxday muxuu yahay markaan imaadaan kaaga sheekeynaya ورنتيسا ونفسي كلها أبا نفسي كسر واي أنا قوي أعطنا إسلام حياتها واحد دقيقة ولا بحا ما أنا إسلام واحد دقيقة ولا بحا محياتها محا خلدن سي وحوشران أيوم باليس وشاقي واللي يقول موقتاي odaygaagii halkaasuu iibsaday xooluu iibsaday gabar yar buu guursaday oo 21 sano sanadkan gashay miyii buu ku guursaday dee hawo fresh iyo caano fresh halkaa ku haysta oo bidaartad ka samaysay wey waay halkaasuu ku iibsaday soo maaha okay maan weydiin ma gabadh baad guursatay ma xoolo miyii baad iibsatay wixiiba kumaan odhan waxa la gaadhay balantii biraha layga saarayay birihii baa layga saaray waan socday walow aan sideedii hore u soconayn oo aan weli lugaha aan xoog aan dhulka ha dhigin laygu yiri xoog ha u dhigin oo aan biro ku tukubayo ayaan socday waxaan tegay shaqadii iyo wixii baan soo kantaroolay soo kormeeray
shaqooyinkii baan soo kormeeray waxaan ogaaday kaambanigaygii inuu isagu wareejistay maasha allah maxaa dareentay markaa tii hore iyo guurkii iyo wixiiba tan aygaga daran waaba dhacanahay guurka isaga baaskooladiis meelaha la wareegay laakiin anigii baa dhacan markan looyarkaygii baan u tegey waxaan ku iri looyar hawshaas ay haysataa wuxuu igu yidhi meesha saxiixaagii baa yaala waanu dacweeyey dacwad baan kasii dhigay maxkamad baan u furtay anigoo xanuunsanaya oo kaaraya oo markaan jabay shilka galay inuu igu yiri warqadan saxeex shaqadii weeye wax khuseeye oo anigoo akhrinaan saxeexay wadankii buu yimi waanu isla googo'nay waa la iiga soo wareejiyey shirkadii markii la iiga soo wareejiyey ayaan waxaan sameeyey waxaan ku yidhi ifur wuxuu igu yiri kuma furayo ciilka marka aan u qabo cadaawadda aan u hayo nafta haddaan ka jari karayo waan ka jari lahaa waxaan qorsheynayaa markaa sidii aan uga aarsan lahaa sidee uga aarsanaysaa way idinla tahay yaa inaad ka aarsatid haa weli ku qabaa haa diidii inuu ifuro adkaatay way nagu soo jeesatay tamaandhe yaa tamaandhe way nagu soo jeesatay waxaa dhacday wuu diiday inuu ifuro waa diiday inaad ifurto okay dowladdii baan u tegey waan ku uri ninkan anagi maxkamad ku kala baxnay waan iska furay waan iska soo saaray single mother baan qortay inaan iska furay walkaan naa ku guursaday anigii khiyaameeyey shirkadaydii qaatuma seeg maxkamad isla galnay inaan iska furay gurigiisii buu imanaya inantiisii baa joogta xaaskiisiina waan ahay waan isku dhigay mindi dhul taalaan iskaga dhigay xaaji soo dhowow wixii hore way dhaceen cafallahu camaa salaf xaajiyadaadii baa adna xaajigaygii baa tahay muqmadii baan usoo jiray suqaarkiina waan u sameeyey inaad khiyaamaysaad rabtaa haa acuudu billah ragga waad maqlaysaan gabadhu haddii muqmadna kuu jarto kusoo dhaweyso waxbaa jira aan la sheegin bad baa jira aan la qaadan ku soco wadiiqada aad malayso waaweyn bay kugu watahay ku soco isagoo